mararka qaar dadku marka ay ku soo koraan nolol aad u adag oo xanuun badan waxa ay xasidnimo u qaadaan dadka deriska la ah ee hantida leh. waxay aaminsan yihiin dadkaasi inay caawin karaan dhibka ay ku jiraan ka saari karaan, laakiin ay ku dan la'yihiin. Iftikhaar waxa uu ka mid noqday dadka sidaa u fikira ee xasidnimada faraha badan la u qaada deriskii ku hareereysnaa ee ku daawada dhibkii soo maray ama uu ku jiray. waxa uuna jeclaan jiray in hantiilayaasha uu yaqaano oo idil inta laga xayoobiyo dhammaantood faqiir laga dhigo si ay u dareemaan xanuunka nolosha uu isaga ku sugan yahay. laakiin carruurnimada ayaa keenaysa inuusan u fikirin sida saxda ah. Iftikhaar waxa uu qaaday tallaabo uu islahaa waxaad ku beddelin doontaa nolosha reerkaaga, mas'uuliyadda aabbaha dusha kuu saarayna waad ku gudan doontaa. laakiin nasiib darro tallaabo waliba uu qaado waxaa ka soo horbaxaya caqabad uusan hore u sii filanaynin, kuna sii dhalisay murugta uu ku noolaa mid ka sii daran. ku soo dhowow qisadii maalintii ilaah iyo qunsulkii Cameroon qaybteedii 2 oo aad kala socotaan kanaalka Cilmi Kororsi. haddii aad naga cusub tahay fadlan saar subscribe si aad ula socoto qisooyinka kale ee soo socda, siina gaarsii asxaabtaada kale. daawasho wacan. wiilkii yaraa ee Iftikhaar marka uu ka soo tagay xabsiga waxaa dhagahiisa ka sii guuxayay erayadii uu aabbihii ku yidhi. waxaa loo soo sheegay erayo isaga ka da'weyn, uusan xamili karin, fahmina karin qaarkood. laakiin meesha ugu muhiimsan oo islahaa waad fahantay waxay ahayd in uu reerka isaga mas'uul ka noqdo, hooyadii oo xanuunsanna caawiyo. xisaabtan dheer oo naftiisa la xisaabtama kadib iyo su'aalo adag oo isweydiinaya oo ahaa maxaad qaban kartaa, waxaa u soo baxay in uu qaban karo mid ka mid a howlahan soo socda: in uu noqdo kabalyeeri dadka shaaha u geeya, miisaska maqaayadaha tirtira, alaabta inta fududna dhaqa, ama inuu noqdo baalashle magaalada ka shaqaysta oo dadka kabaha wacseeya. waxaa sidoo kale u soo baxday in uu beeraha aado oo uu ka soo shaqaysto. ha yeeshee waxaa ku soo dhacday in maqaayad oo idil uusan u dhowaan karin ay tahay sababta uu aabbihii ugu jiro xabsiga hadda. maalinkii dambe isagoo u sii socdo beerta oo doonaya meel uu ka shaqaysto ayaa waxaa ka hor yimid carruur yaryar oo gaari yaryar jiidaya. waxa ay sideen baakado, qasacado, dhalooyin. marka uu waraysto waxaa loo sheegay in waxyaabahani ay ka keeneen qashinqubka, ayna u wadaan shirkad ay leeyihiin qolo ajnabi ah, halkaasna carruurta ay ka shaqaystaan. isla meeshii ayuu iyagii ku biiray, hawshiina ka qabtay, waxaanu ku guulaystay in nolol maalmeedka reerkooda uu halkaa ka dabaro. muddo 5 sano ah kadib, Iftikhaar oo aan maqlin dhawaqa hooyadii ayaa mar qura waxa ay ku tiri, Iftikhaar, aaway boorsadeydii. intuu yaabay, farxadda ka badbadatay ayuu wuxuu isweydiiyey, ma hooyadaa baa kula hadasha mise qof kale? intuu soo fiiriyey ku yidhi, hooyo ma hadli kartaa? boorsadeydii aaway ayay tiri. Iftikhaar marna wuu farxay marna wuu yaabay. waxa uu ku farxay hooyadii oo hadashay. waxa uu la yaabay hooyadii oo aan 5 sano hadlin, intii ay salaami lahayd, aabbihii aan meelna lagu ogeyn weydiin lahayd, boorso weydiinaysa. boorsadu maamada ay sheegayso waa midii intii ay caafimaadka qabtay haysan jirtay. waxa ay ku tiri, hooyo, intii aan xanuunsanaa, miyirku iga maqnaa, ama aanan hadli karin, qofkiin ma jiraa boorsadan inta furay fiiriyey? waxa uu ku yidhi Iftikhaar hooyadii, maya hooyo, cid fiirisay ma jirtee, maxaa ku jira boorsadan ay sheegayso? maamadu wiilkeeda Iftikhaar waxa ay ku tiri, hooyo, haddii aan kuu sheego sirta ku jirta boorsadan, dib dambe aniga ima xusuusan doontid, halka aan alla ayaad iiga tegi doontaa. sidaas daraaddeed ma kuu sheegayo waxa ku jira sirtan. haddii aan xanuunsado ee aan miyirka iga tagana, ha fiirin ilaa aan ka dhinto. hooyo, ii ballanqaad in aadan fiirin doonin inta naf igu jirto boorsadan. laakiin waxaad weligaa xusuusnaataa maalintii ilaah. ha iloobin hooyo maalintii ilaah. Iftikhaar waxa uu aqbalay waxa ay hooyadii ka codsatay, wax war ah uu ku soo celinna ma jirin.
laakiin waxa uu caloosha dhigtay go'aanna ku gaaray in uu ogaado waxa ku jira boorsadaas. waxa uu aaminsan yahay in boorsadaasi ay ku jiraan dahab fara badan, in boorsadaasi laga heli doono hantidii reerka ay lahaayeenoo idil. maalin maalmaha ka mid a Iftikhaar waxa uu Jaanis ku helay boorsadii. waxa u suura gashay inuu furo gudaheeda waxa ku jirana uu arko. waxa uu gudaha ku arkay 3 bashqadood oo xiran oo keliya, oo aysan ku dul qornayn waxba. mid ka mid a ayuu furay. marka uu furay waxa uu la kulmay naxdin aad u weyn. waxa uu la kulmay wax uusan weligii filanaynin. wuxuu warqadda gudaha ku jirto ku arkay wax inta uu soo maray xanuuna inta ilowsiiyey xanuun cusub u zaa'idiyey. warqadda waxaa ku qornaa ujeeddo furiin. aniga oo ah Faa'is waa aabbaha dhalay Iftikhaar ee xabsiga ku jira. waxaan caddaynayaa oon maxkamadda u sheegayaa in aan kala tagnay aniga iyo xaaskayga Nawaal. arrintaasi waxaa sabab u ah taliyaha. waxa uu nagu noqday dhibaato iyo wax aanan weligii ilaabi doonin. waxaa sidoo kale jirta in dhibaato kale ay nagu soo biirtay nolosheenna maalinkii Ilaah. qof waliba kama qarsoona wuuna og yahay wixiina soo maray maalinkaasi. waxaan xaaskayga ka codsanayaa inaysan carruurtayda u sheegin in aan kala tagnay si ay farxad ugu noolaadaan. aniga inta aan noolahayna xaas kale ma guursan doono ilaa ay ka weynaadaan. Iftikhaar waxaa ku dhacay qaracan iyo wadna dilaac. ilaan hooyadii iyo aabbihiiba inta uu xusuusto isma qabaan. haddana waxaa su'aal ku noqota uu fahmi waaye, maadaama aabba uusan qabin hooyo, maxaa keenay markii saldhiggii ay isla tageen ee loo sheegay in ay suuragal tahay aabbaha in lagu xukumo xabsi daaya in aysanna arki karin in ay jooga ka dhacdo ay naxdo. isaga oo walwalsan, ilina ka socoto, aadna uga baqrin qaba waxa ka soo bixi doona gudaha warqadahan kale xiran, ayaa waxa uu furay warqaddii labaad. waxa ay ahayd warqad meher oo taliyahay aadka u dhibaatada faraha badan la u gaarsiiyey ee booliska ah ee saldhigga joogay ee hooyadii hortiisa ay ku suuxday. waa ninka qaba hooyadii, waa adeerkii. naxdintii waxaa ugu sii darsoontay ciil iyo caloolxumo fara badan. waxa uu aamini la'yahay in hooyadii ka qariso ninka qaba, in aabbihii ka qariya in hooyadii ay kala tageen, in hooyadii iyo aabbihii labadaba go'aan ku gaareen in carruurtan ay ku noolaadaan nolol beenaad. ma haysto cid uga jawaabaysa su'aalahan ku taagan. hooyadii waa ay xanuunsanaysaa, aabbihiina waxa uu ku jiraa xabsi. waxa uu go'aan ku gaaray in uu soo qaado warqaddan xiran, uu la hortago aabbihii, weydiiyo sababta iyo wixii dhacay. middan xiranna intuu hortii ku furo wada ogaadaan iyagoo isla joogaan. waxa uu ka baxay ballantii uu ka qaaday aabbihii ee ahayd in uusan booqasho dambe ugu imaanin xabsiga. waxa uu yimid xabsigii. odayga oo ahaa nin aad u caqli badan markuu arkay wiilkiisii waxa uu ku yidhi, Iftikhaarow, ma waxaad soo ogaatay sirtii aniga iyo hooyada inoo qarsooneed? ma waxaad akhrisay dhammaan warqadihii kaydka ahaa? Iftikhaar ayaa aabbihii ugu jawaabay, aabbo, waxaan kuugu imid 2 shay. waa midda koowaad in aan ogaado dhammaan wax alla wixii dhacay iyo sababta keentay iyo annaga waxaana looga qariyey. waa midda labaad waxaan gacanta ku hayaa warqad aanan weli akhrin oo aan jeclaystay inaan hortaada ku akhriyo. waxa uu furay warqaddii. waxaa ku qornaa dalxiisihii Cameroon ee dalka yimid. waa maalin maalmaha Ilaahay ka mid ah. waxaan soo aaday magaalada aniga oo wata tagsigaygii.